guulaysan doono guud ahaan dalka walaalahay waa sidaas mar kale inaan ku celiyo dhammaantiin danjirayaalaad tihiin Soomaaliya u taagan haddii abaar wax loo aruurinaa iyo haddii nin senator ah ama congressman ama congresswoman advocacy Soomaaliya ku saabsan looga samaynayo unity Soomaaliya ayaan dhaweeto xoogaa waana la khalkhaliyay oo unity ayaa la waxaynaya Somaliland dad Soomaaliyeed waaye siyaasadda aan kula dhaqmayna waxay ahayd siyaasad aan colaad lahayn dagaal lahayn faragelin iyo kala qaybin iyo kala wixii faquuqid aan lahayn oo aan rabnay in lagu leeyahay laakiin xilli aad u adag hadda ku jiraan oo ayaga la sidooda ayaa doorashadii iyo wixii iyo wada aan soo marnay bariyay hadda u dambeeyay ayagana hadda ay marayaan insha Allah way ka imaan doonaan si nabad ah diyaaran una inaan wada hadalka meesh ka bilaawno laakiin marka intiiba waa kala shaqeynay marka walaalayeen reer Somaliland annaga waxaan naga go'naay inaanan hadda aanan diplomatic masalka dawladda Soomaaliya ay leedahay legitimate ka inaanan ku barashar garayn laakiin there are limits wax kasta oo gooni isu taaga promote garaynayo waa ka soo horjeedna wixii ka soo hara development hadday tahay humanitarian hadday tahay trade iyo business iyo investment hadday tahay all waxa waaye aadan u soo dhaweynaynaa documenti iyo wax dalka dawladda federaalka looga baahdaya horena waa u sii jira haddana waa siinaynaa laakiin any agenda oo midnimadeena dhaasi hadda dhaawacantay si dhammaystiraayo whatever uu yahay ama dhaqaalaha ku soo gabado ama development loogu soo gabadee waa diideynaa mana qarinayno inaan diidanahay walaalaha ayagana waa u sheegnay annaga gooni isu taaga ma ogolin waxaan rabnaa walaalaha inaan fursad siino oo termiska aan ku midoobayna xataa ayaga ha ka timaado the way they see fit inaan dib u midoobno ha ka timaado ayaga waa kala doodaynaa here and there waana la qaadanay laakiin annaga xataa hadda inaan ku qasabno saanan ku midoobayna inaan dhahdo there are two circles oo kala koreeyo oo mid walba midka ugu koreeyo waxa waaye horta principally inaan isku raacno dalka waa la isku celinayaa waa midoobaynaa waa mabda then waxaa imaanaya see u midoobaynaa waxaa laga yaabaa inay years kala qaadato sanad 2 3 4 5 6 10 inay qaadato muddadaas seen u midoobaynaa laga shaqeynayana waxaan samaysanaynaa qaab unaan heshiis ku nahay oo weliba ayaga ay ku qanacsan yihiin diyaaraan u nahay inaan xoogaa annagu aan dul qaadano isgaabino oo ayagu ay maxaa ay shine gareeyaan laakiin the end result waa maxay a united Somalia we have so many things wax badan oo namidaynayaan qabnaaye yaanan muxuu ahay ku mashquulin walaalay aad iyo aad u mahadsantiin waxaan rabnaa marka doorkiina qaata muxuu ahay afar sano kasta waa codaysaan dadka aad u codayseen meeshaasay fadhiyaan tell them waxa oo adiga interestigaaga collectively adigoo wada jira individual ma hadduu democrat yahay hadduu republican yahay waxa extra weydiisanayna malaha laakiin that is your home that's your maxaa la yiri shimbirka duulaa irsaqiisa dhulka waaye inuu waxuna doorasada at the end ugu yaraan maxaa waaye marka pension la noqdo Soomaaliya lagu gali lahay dabcan meelo badan oo kamidana sida ay heesti ahayd qof hadduu dhinto maxaa waaye hal la geeyo meedkiisa hal la geeyo Somalia is the home the real home so please aan ka wada shaqeyno inay qurxanaato gabadha hadda kor waxay u tiri I hate markaan Soomaaliya inta ka tago aan America ku noqdo with American passport and tag to Somalia American goon u bax xag istaag inta ka timiday maxaa sameynaysa Soomaaliya maxaa jira su'aal tamay laba su'aal so Soomaalinimadii ma ka harayso wherever you go waa ku daba socotaa waana kugu dhagantahay waxaa fiican marka wax qurxoon inay kugu dhaganaadaan oo kugu associate garoysnaadaan so aan Soomaaliya qurxinno waa qurxin karnaa hadii la yiraahdo aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin waa idin mahad celinaa waa isharafteen waa i weynayseen aad iyo aad u mahadsantihiin guulaysta